السلام عليكم وعليكم السلام دمان انتي داوانيسو Apparently this is a magic slush maker, so let's have a look if it actually is. So I've just opened the box and this is what it looks like. السلام عليكم وعليكم السلام دمان انتي داوانيسو waxaan rabaa halkan inaan wax yar oo fariin ugu diro wax badan ma rabo inaan ku jiro waxaan rabaa maamo Saadiyo xildhibaanad Saadiyo oo tiray ka hadashay maqaamka gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan ka hadlo maqaamka gobolka Banaadir ugana jawaaba halkan maama Saadiyo iyo maamada la leeyahay maama Khadiijo Diiriye wasiiradda isboortiga waxaan idin leeyahay ra'yigiina waan dhageystay iyo kuwii ku oriyay xildhibaan Carabow waxaan idin leenahay horta dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam bacdigeed waxaan rabaa Soomaalidu run iskuma sheegto rumaan la sheegin maahine riti dameerka raad qurxoon maamulka gobolka Banaadir uma hadli karo ninka yimid gobolada iska daa xildhibaan iyo wasiire madaxweynaha ayaan ka hadli karin maamulka gobolka Banaadir haddii loo raadinayo xuquuqdiisa waxaa ka hadli karo only dadka u dhashay gobolka Banaadir kama hadli karaan dadka yimid gobolada oo dal goboladoodii dhisteen canshuurtaynana ku nool canshuurtoodina u gaar tahay maamul u sameynta gobolka Banaadir only waxaa ka hadli kara reer Muqdisho oo ah dhibanayaasha in maanta la isku qabqabsado gobolka Banaadirne waxaa sabab u ah annaga waxaana raadinaynay Soomaalinimo waana loo gara waayay meel walba maanta waana laga soo xiray haddaan nahay mudulood ilaa nala gaarsiiyo ma shiri kartin shirkaynana awooda loo isticmaalo amba qaab siyaasadeed iyadoo cid walba ay shiri karto waxaan rabaa labada xildhibaan ee ku jira aqalka baarlamaanka waxaan idin leeyahay horta ra'yigiina la noqda Muqdisho uma sino hawiye mana u sinaan karaan waa la wada degan yahay yes laakiin looma wada sino hadday tahay maamul u sameynta gobolka Banaadir inay hawiye u sinaadaan ama hawiye oo leeyahay waa qasab daaroodna inuu yimaada xaq buu ku leeyahay waa qasab daarood inuu yimaada xaq buu ku leeyahay waan ku celinaa mar labaad iyo mar saddexaad haddii looga dambeeyo maamulka gobolka Banaadir mudulood waan qirsanahay walaalahay inay ila degan yihiin laakiin ma ogolaan doono inay ayaga ka mid noqdaan ay yiraahdaan gobolka Banaadiran annagu leenahay malihidiin haddaad tihiin hawiye mana lahaa doontaan waxaan daarood ku fogeeyo oon hawiye ku soo dhaweysto garan maayo anugu waa haddii runta saaxigeeda la rabo annaga run iskuma sheegna been baan iskugu mara dhaqnaa runtana waa midda keliya ee saaxiga lagu tago fafahabnaaha Sulaymaana wa kullan aataynaa xukman oo ilaahay yiri ilaahay wuxuu u kala gar qaaday wiil iyo aabihiis Soomaali runta way nacab tahay ciddi ka xanaaqi lahayd ra'yigayga iyo ciddi igula saaxiibi lahaydba waxaan ku raacdeeya daarood ku fogeeyo oon hawiye ku soo dhaweysto garan maayo, anugu no more abgal aniga hawiya yiri
waad igarateen sax ciddi iga xanaaqileed iyo ciddi igu taageerileed I don't care about waxba igama gelin maqaamka magaalada muqdisho waxaa ka hadli karo mudulood waan ku celinaa mudulood cid kaloo ka hadli karta ma jirto inay maanta eelay soo hadashay tiraaho maqaamka annaga iskale annaga ka hadli karno waa loo siman yahayne waa waxa aniga isdhigay eelayay waxaad leedahay dhulkii aad ka timid ee bay iyo bakol iyo baydhabo waxaad leedahay state aad habar gidir iyo murusada waxaad leedihiin state go aad waxaan idinku soo dhawaysto oon reer Puntland ku fogeey iyo Jubbaland uma jeeda aniga xildhibaanad Sacdiyoy adigana waxaan rabaa fariin yar inaan ku diro waxaa tiray maqaamka magaalada muqdisho waa loo siman yahay Soomaali oo dhanna way ku midoobaysaa okay ma ku diidan inay Soomaali oo dhan ay ku midoobayso adigu ma ii ogoshahay Puntland inaan wax ka noqdo minishi biyada dhulka xaaqdaba Allah iga dhige jawaabtu waa maya waxaa tiray gobolka Banaadir ninkii 30 sano ku nool ee deganaa shuruud la'aan xaq buu ku leeyahay 30 sano ka badan anaa Puntland kula degan xaq ma kugu yeeshay wayga aniga aad xaq iigu yeelatay isma dul saarna hadalkayga wayga aniga aad xaq iigu yeelatay on adiga xaq kugu yeelan waay aan u baahanahay tayda lihi taadana kula lihi waa 30 sano waxaan u dawlad la'na iyo run la'aan xildhibaanad Khadiija adigana waxaan ku leeyahay maqaamka muqdisho uma hadli kartid xaqna kuma lihid dad baa ku taageero ku sacbiyo laakiin adduunyada dadka ku nacibaan kamid ahay kuumana sacbi doono dadkii ku qayliyay xildhibaan Carabowna waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaan ninkii burciida kuugu tuuraa waxba kuma uusan dhimin calooshiisa ku tusay waxaad u qayliseen ood ka xuntihiin ood ugu sacbiseen ood ugu oriseen oo codkiisu ugu diideen xildhibaan Carabow waxay ahayd maqaamka muqdisho inaad diideysaan laakiin maqaamka muqdisho waaga raggi iska lahay ka jiifo ee haddii runta ay tagto lays warsamay sacbiseena bodbodeena dabada qorinii laga galsha waa idinka wax idin yaalo waxaan rabaa inaan la hadlo Mustaf Dhuxulow ebow bariga waxaan dhihi lahay dad badan isoo dacweeyay oo hadda la heshiiye oo birin ila hadda wax sheegay ila dagaalay laakiin isceli ma karo ina isceliya Iran waxaan ku leeyahay Mustaf Dhuxulow qarastaha nagu kicinin dad hilib noogu yiilaadna nacsiisan adiga iyo khayre maqaamka muqdisho ha u hadlin ficil iyo qabyaalad 19 laga soo tagay adinka dib noogu celiseene ha u hadlin maqaamka gobolka Banaadir inaad wada saartaan dayniile kaysanayna aad u diideen waa taariikh buugga madow noogu jirto ninkii shirbaayo wuxuu yiri timir kasta la faadhaxtaal tikraana dakadiyo taba horaan insaas ugu shirbay hadda ogow ma iloobi doono inaad dayniilana saarto wado kaysanayo isbitaalkii ku yiilanaad u diidaan waa mid meel idinkugu qoran sida ina idinka dayniila ka soo dhalateen oo idinka leedihiin oodanba ood ilowdeenbo sharaftii iyo ciidadii la idinku soo dhaweeyay waxaan rabaa wax badan kuma sii juraay waan idinka tagaahe fariintan sida loo wado habraha shaqfalaha weyne baarlamaanka ku jiro ee canshuurta gobolka Banaadir dhuuqaayo ha loo geeyo intaana ka bixinne farmaajo iyo khayr waxaan leeyahay ciidamada aad biilka siisaan bil walba baarlamaanka markii firimbiga lagugu yeeriyo aad xanaaqaysa aad lahayd ciidamada mushaaraadkooda waa siinay waa la ogyahay inaad siisay laakiin yay ahaayeen xildhibaan ciidamadaas
gado kuwaa ka keentay iyo kuwa khayra bisaad siisa waa lagaa aamus kul way kaa cabsaayeen dadka laakiin anigu run sheeg waa ceebsha kuu qarima gada kuwaa ka keentay oo adiga ilma adeeryaalkaa ah iyo waxaad siisay khayro dadkiisa maha u taagan laakiin kubi masaakiinta ahay canshuurtoodii la cunayay ee gobolka banaadir muddo 35 sano u taagnaay u dagaalamayay oo difaacyada aad geysay xabadda ay isaga dhigtayne mushaarkooda sanad iyo 8 bilood bayna tubeeyaar aadan siinin sadar muuqda su'aal ka dhan sababaha aad ugu diiday oo dhan waan ku ognaa sababaha aad ugu diiday oo dhan waynu ku ognaa laakiin waxaan ku leeyahay cimri taga ceeb laguma sagootiye gabal sii dhacayaa tahaye ha isceebaynine waad ceebowday waxaa la yidhi ceebtaada hadday kun ogtaa kowda looguma dare ha isugu sii darin ee biliis waad dhacday waad fashilantay waad ku ceebowday xilkii lagu igmaday waxaan ku leeyahay dadkaas masaakiinta aad xaqoodii haysato fadlan gudbi waarana waa ognahay inaa inta akoonkiisa lacagti loogu talagalay hirshabeelle intaad tireen waa ku soo shubna ee waara dheh aad tireen oo waara yira waa lagu soo shubay haddana dib kala noqoteen aadaan uga xumahay dadka aqoorta uga wada taagan tihiin waa dadka canshuurtooda aad cunaysaan xaqa yowsan idin qaban laba sugi maa xaqa inta idin qabto anaaba xasilkaas leenu ku sugaynine yowsan xaqa kugu soo degdegin anaa qori caaradiisa kaaga saarahaaye filla Soomaaliya filla marqaan anaa kaaga saarahaaye khayrow adigana mahadsanidaan ku iri waxba maanta ha iska dhigin inaa khayra la farmaajo la dagaasho farmaajo aad colaad la qabtaa waxba annaga gurbaan beenaha noo garaacin lagu baray waxaan leeyahay baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed dadka noogu jira ee reer Muqdisho intaad fadhiga ka kacdaan geed dheer iyo geed gaabanba waxaad u kortaan maqaamka gobolka banaadir inuu soo degdego xildhibaan carabowna waxaan leeyahay waad ku mahadsantahay ra'yiga aad ka dhiibatay xildhibaan Cosoble aad ugu mahadsantihiin wasiirad Khadiijana waxaan leeyahay hawiya iskale gobolka banaadir waa daacatay hore u laabo hawiya bisheri kuma lahan gobolka banaadir saaxib hawiya ma waxaad u malaysaa 3 xaba 4 xaba ma u malaysaa hawiya waa qowmiyad mana daga Muqdisho mana lahan Muqdisho rag baa iskale ragga iskalayna way nool yihiin haddii la idin carab laadlaadiyay oo la yiray waa caasimad ummadda Soomaaliyeed ummaday ka dhaxaysa baq aayad quraan ma ku soo degtay caasimadda warhoy aayad quraan ma ku soo degtay injiil iyo tawraad iyo zabuur meeshay doonta ha ka timaado kutubkaas oo aayadaas kula soo degtay aan u baahannahay haddaad tihiin xildhibaanada dhahaya maamulka gobolka banaadir waa loo siman yahay hawiya iskala kuba dhaha iyo kuba waa loo siman yahay dhahayaba iyo waa caasimad waa la wada ogyahay anaa shala caasimad ka dhigay Soomaali way midaasnaad Hargeysa way joogtay Jubbaland way joogtay Puntland way joogtay Galmudug way joogtay Koonfur Galbeed way joogtay Hirshabeelle way joogtay waa loo sinay saxanka xeeradiisa waa la wada cunaaye laakiin ninba maanta si u goosaaray goosaartiisa goosay tayda maxaa diiday saxankaadaad soo daboolatay kaygaad ila cune waa doqonnimo caasimad waxay noqonaysaa ay ummadda u dhaxaysaa midka Hargeysa degan marka uu canshuurtiisa keena magaalada Muqdisho kan Jubbaland degan sidoo kale kan Puntland degan sidoo kale kan Koonfur Galbeed degan sidoo kale laakiin xilliga ay maanta taagan tahay saaxiib xilliga ay maanta taagan tahay waa
وهي ديدني وريا أنا وقل مدوك حق له أحقي الله يدود سيي أسان آموسانهي أسان ما أنت إليدهين ما ملك قبل كبنادر والو سميهي وعاصمة أمد الصوماليات حبرتد أي عاصمة أطا إيدي كنت عاصمة إيه معان مقالة مقدشو قوري جايغا واي قوري مدلود واي قوري لدقانيها واي ولا ودا دقانيها ولا ودا دقي كرا لو ما سنان كرو أنا كهدلي كرو إجاراتي الإجارة ما أنا يقول رفكرو إجارة تاحيل لغان دونانا بحيل دادك أن لهاد لاياني وادادك مانتو أصو لكتاي إناي دكاد مقدشو يا إيرابورك مقدشو شالا بحالا قالين أهاي وان أنيغا أن حريستي وان أنيغا كسارتي بحالا دي إنا مانتا إتراهدان أناغا أصيمان أمسينان كارتين هذا الكأنيغا لما إسكو مكاي دول صار هادي لو سينادا مامولكا gobolka banaadir hawiya u simeeyahayne daaroodna waa u simeeyahay waa imaan kariya arka doontin u raaca meesha doontin u raaca idinka idin taala wabillahi tawfiiq